wasaaradda deegaanka Somaliland ayaa shaacisay inay bilowday diiwaangelinta duurjoogta ay haystaan dadka shacabka iyadoo wasaaraddu digtay dadka ku hawlan soo qabsashada duurjoogtaasi. wasiirka wasaaradda deegaanka Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare oo weheliyay agaasimaha waaxda duurjoogta ee wasaaraddaasi ayaa sheegtay in kooxo ka socda wasaaraddu ay diiwaangelintan ka bilaabi doonaan gobolada Maroodi Jeex, Awdal, Saaxil iyo Togdheer. wasiirka deegaanka ayaa xustay in xeerka ilaalinta kaymaha iyo duurjoogta uu farayo wasaaraddoodu inay ka warayso duurjoogta dalka taas iyagoo ka duulayeen ay sameynayaan diiwaangelintan. maanta halkan waxaan doonayaa inaan idinku wargelino oo idinla wadaagno shaqo ay qaban doonaan waaxda duurjoogtu oo ay u kala bixi doonaan gobolada. 4 gobol weeyaan, 4 la doonayeen xog la saaro: Maroodi Jeex, Saaxil, Awdal iyo Togdheer. annagoo ka duulayna run ahaantii xeerka number 69 ama 69 xeerkaas oo ah kaymaha iyo duurjoogta ayaa wuxuu annagana faraya xeerkaasi inaanu waqti kastaba ka warhayno duurjoogta lagu hayo meelaha private-ka ama hodheelaha ahaato ama guryaha ahaato ama institutionada kaleba ha ahaatee inaanu ka warhayno. 2018 waa la diiwaan galiyay, si wacan baa loo soo wada diiwaan galiyay. 2019 waa la soo hubsaday, waa la soo eegay. imikana waxaanu doonaynaa sanadkan intaanu dhammaan in dhulka la soo maro oo la eego waxa ku kordhay ama ka dhimay xayawaanka markaa ama duurjoogta ay gacanta dadka ku jirtay iyo institutionadaba ku jirtay. markii la diiwaan gelinayay waxa runtii loo aan diiwaan gelinay 157 ayaanu diiwaan gashanaa. 33 anaga gacanta ku hayno harimacad bay haayeen, inkastoo maanta kordheen 77 ay marayaan, maalintaas 3 bay haayeen. marka inta ka reebto waxa imika xusid mudan waxaan la doonaynaa inta aanu ka soo qaadnay meelaha kale ama aanu ka soo qaadnay institutionada oo ah maanta 27 waxaanu ka soo qaadnay hadii alla ku rooyay miiska saraakiisha. banka waxaanu ka qaadnay 3, Grand Hotel waxaanu ka qaadnay 2, Smartna waxaanu ka qaadnay 1. inta marka la isu geeyo waa 33 ka waxa la geeyay dabis halkaas intaas joogto waana tarantay maanta 2 bay maraysaa. waxa haray hadaba 101 diibaan ku harsanaa marka dadka gacantooda hudheelada iyo institutionada ayaan doonaynaa inaanu eegno bal caafimaadkooda iyo sida yihiin iyo maxaa ku kordhay iyo maxaa ka dhimay. waxaan doonayaa in halkan dadka xasuusiyo duurjoogtu waxay ku wanaagsantahay duurka. duurjoogtu waxay ku wanaagsantahay duurkeeda. wax walba meel baa loogu talagalay. duurjoogta waxaynu doonaynaa inaynu duurkeeda u deyno. Cabdinaasir Xuseen Siciid agaasimaha waaxda duurjoogta ee wasaaradda deegaanka Somaliland oo isna shirkaasi jiraayad ka hadlay ayaa sheegay in diiwaangelintan ujeedadeedu ay tahay sidii loola socon lahaa xaaladda ugaadha gacanta ugu jirta shacabka. marka wasaaraddu iyadoo ka duulaysa xeerka ilaalinta kaymaha iyo duurjoogta waxay mar walba fulinaysaa waxa weeye xeerka iyo awaamirta ay wasiirka wasaaradda deegaanka iyadoo ka duulaysa xeerka ilaalinta kaymaha iyo duurjoogta wareegta ay soo saartay oo ay ku sheegaysa in waxa weeye la wareego dhammaan duurjoogta la haysto inta ka hor in la soo hubiyo duurjoogta wixii ku kordhay iyo waxa weeye xaaladooda caafimaad iyo sida yihiin. marka tiimku waa diyaar, waxa weeye waxay diyaar u yihiin wax kale nala socda dhakhtarkii oo eegi doona insha Allah taala xaaladooda caafimaad.